waxaan si ballaaran soo dhaweynaynaa dhammaan jannada ciidamada barasaabada gobolada dalka oo dhan oo maanta ka qayb galaya shir ka dhacaya magaalada Dirdhaba si ballaaran baan soo dhaweynaynaa annagoo ah maamulkii degmada Togwa Jaale oo ah meeshii ugu dambeysay ee xuduudda ku taalay ka dalahan xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya si ballaaran baan waqti u sii gudbinaynaa annagana ka tallaabinaynaa oo u gudbinaynaa xagga Itoobiya jaalanahay dhammaan barasaabiyadii gobolada Soomaaliland oo kaga qayb galaya shir Itoobiya oo halkan nagu soo maray iminka degmada Togwa Jaale annagoo maamulkii degmada waxaan kaga hortagnay kala baydh agteeda gudoomiyaal ku soo dhawaada degmadii Togwa Jaale idigu mar dhow na dhaafi doona safar gali doona waxa weeye iyo dhammaan waxa iyaguna la socda taliyaashii amniga oo iyaguna shirka kala qayb gali doona ku soo dhawaada qamca furan ku soo dhawaada haddana maamulkii degmada Togwa nahay wafdi ka kooban barasaabada dalka inta xuduudda leh dalkeena jaarka Itoobiya taliyaasha ciidamadaas badda militariga ciidanka qaranka bilayska iyo ciidanka badda ayaa iyaguna iyo ciidanka maartay sirdoonka ayaa nala socda waxa kale oo nala socda wasiir xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo saraakiil ka socda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u soconaa waxa weeye shirarkii indhawaalaba naga baaqday laakiin dhici jiray qabsoon jiray oo ahaa maartay in laga wada hadlo xiriirka nabadgelyo iyo horumar ee labada dal ee walaalaha Itoobiya iyo Soomaaliland halkaas oo u socono in British uu ka bilaabi doono magaalada Dirdhaba ee dalka Itoobiya shirkaas oo runtii isku arki doono dhigayaga gobolada iyo xuduudaha deegaamada xuduudda leenahay taliyaasha ciidamada dalka Itoobiya oo laga wada hadli doono sida loo xoojiyo amniga labada dal loona soo wanaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee walaalnimo ee naga dhaxeeyay oo ah inaan dhinacna aanu qofka xumin burcadka ama tuuga ama qoriga sitay wadaan maadarka aanu dhinacna u gudbin oo dhinac walba lagu qabto ayuu daaran yahay sidii looga wada hadlaa iyo waxyaabo badan oo kale oo maartay soo bixi doona hadhow markaan isu nimaadno halkaas waxay la joogaa barasaabadii Hawd Oodweyne iyo Buuhoodle waxaan ku rajin doonaa aan ka soo bilaabo barasaabka Hawd isaga Saribray hawshan soo runtii loo qaabiyay ama wasiirada hawshan labada dhinac ka mid ah soo qaabiyay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa shirkaas labada dawladood isku xidhan yihiin way iskaashadaan qorshe amni iyo mid wax wada qabsi iyo mid ganacsi iyo mid iskaashi kaliya way leeyihiin waa shirkan waa in si qoto dheer loo sii adkeeyo dhibada loo sii aaso la sii xoojiyo weeye barasaabaduna qayb ayay ka yihiin maadaama ay barasaabada xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland ku dheeraad dhame ay marayaan waqtiga ay ku jiraan macnaheedu waxa weeye heer qaran ilaa iyo heer gobol inuu xiriirkii iyo wada qabsiga iyo iskaashiga uu dhameystirmo xididdo hoos adag u yeesho weeyaan aad baan gobolka Gabilina runtii ruuxda iyo roobka helay iyo wanaag iyo magaalooyinka camiran aad baan runtii ugu faraxsanahay maamulka ka jiray sidii horumarka uga socday iyo sidii noo soo dhaweeyeen ba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu mahadcelinaynaa waxaan soo dhaweynayaa barasaabka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka degmada Togwa Jaale barasaabkeeda iyo bulshada dhammaan aad baan ugu mahadnaqayaa halkan sida ay sheegan barasaabadu waqti ballaaran baan ku maraynaa barasaabadii dalka iyo wasiiro iyo taliyayaashii ciidanka runtii shirkani waxa weeye waa shirarka ugu muhiimsan xagga nabadgelyada in halka laga sii qaado sida hadii loo sii wadana waxa weeye nabadgelyada dhulku labada dalba waxay noqonaysaa mid satalida sababtoo ah labadii dhinac cidii mas'uuliyadda haysay mar hadii loo xil saaro la ilaa idinka ka mas'uulo xadkii waa idinka hawshu waxay noqonaysaa mid hadhow cid laga la xisaabtamo la helayo shirarkan berigii hore ayaanu anagu abuurnay ugu yaraan 3 goor baan anigu jigjiga kaga qayb galay 2 goorna Hargeysa kaga qayb galay imikana waa tan dib loo soo nooleeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hase yeeshee shirkaasi waxa loo baahan yahay maanta labadii xukuumadood waxay kaga nasanayaan mas'uuliyiintii ay u igmadeen xuduudaha kuwaasunba haddii wax ka gudbaan ama madaxa la goynaya ama ku dallacaya ayaan anigu qabaa
waxaana filayaa in raggayaga halkan maraya aanu xilkaa adag ee maanta na saaran dhinacayaga Somaliland dowladda federaalka ee Ethiopia waxaan doonaynaa inaan dardar iyo energy cusub gelino xiriirka naga dhaxeeya dowladda Ethiopia ee federaalka iyo dowladda kililka ee Soomaaliyeed ee deegaanka aad iyo horta marka hore waxaan ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo barasaabka gobolka Gabiley soo dhaweynta iyo marti sharafka nin walba oo magaaladiisa haduu yimaado waajib ku tahay inuu martidiisa dadkiisa soo reeyo talabaad hadda waxaan u soconaa Ethiopia shir baan u soconaa shirkaasuna waa shirka xadka dheer ee aan la leenahay Ethiopia meelaha ugu dhibka badan hadda wax ka jiraan waa soo hadda barasaabka oodweyn u sheegayay oodweyn horta lagu tarinta kale saamigeedu waa hal yaaba wax wada hadal iyo saraakiil ka dhaxaysa socdaal la yiraahdo anigu qaybaha socdaalku waa niga maqan yahay waa jidad badan oo iska loo kontrabanayna waa jira marka waxaan u sheegaynaa ummadda